بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. هذا إله وديقا يا مهد إسكاله. إله عيبتين أستر. إله حسن الخاتمين ورزاق خاتم ذين خير قتيم يا الله ويا حكيم عليم. ولا ليالو ميدان ليابي. لبدا قف مركي كلا تاقان مثلا وقويس مسلم مركو بربرو ميا لغو فرحا مسوا لغا نحا طبعا waxaad is leedahay yes waa laga naxaa laakiin hadda waayahan dambe waxaan aragnaa in lagu farxo qoysaska markay burburaan oo maxaan ku yiraahdaa yani malu soo furay ahlan wa sahlan nagu soo biir anaga soo dhawow yani waxaan maqli jiray aroosad iyo caruusad loo hambaliyayo laakiin kala tagow loo hambalyeynayana waa tacajab ya marka qofka guurka yani qoyska muslimka ah markuu burburo waxaa ku farxa kolley waxaan dhihi karaa waxaa ku farxira qof markaas aan ku faraxsanayn labadaas qof inay wala noolaadaan maalan oo qoyskaas uu jiro wuu ku farxayaa ama inta kale way ka naxayaan laakiin hadda waxay nagu soo batay in lagu farxo oo la dhaho soo dhawow waxaan ku rahdaa hebel iyo heblaay way kala tagtay tan labaad hal mid ayaa la yaabanahay oo xaawi aadan baa lasoo kala tagi jiray yani mar zamaan waa la kala tagaa ilaa nowdan waa la kala tagaa laakiin qofka oo caanka ah ama maalan ama social media ku jiro haddii labadaas qof ay kala tagaan saameyn weyn bay yeelataa saameyn weyntaas maxay tahay labada qof way isla soo fariisan jireen way isla macnaha waa la isku bartay markay waxoogaa kala maqnaadaan waxaa la oranaya hataa hadday dhib jirin xaguu ka baxay intuu aaday yani gabadhii baa laga yaabaa in su-aalo la weydiiyo ama ninkii hadduu keligii soo fariisto oo waxaa la oranaya war heblaayo hebelka intuu ka baxay hebel kale yani bilcaks midkooda markaas qofkii meesha joogo oo maamulo yani oo soo muuqda yani maadaama la isku arki jiray heblaayo intay ka baxday hadday gabadhi tahay waxaa la oranayaa ninkaadi xaguu aaday hadday yani labadii lamaana mid kamid ah hadday gabadhi tahana gabadhi waa la su-aalayaa oo macnaha waxaa la oranayaa maalan hadduu ninkii yahay ninkii gabadhi aaway gabadhi hadday tahay yani anyway labada qof kamid ah hadduu meesha ka maqnaado waxaa la oranayaa xaguu ka baxay marka taas liajligeeda maalan waxaa imaanaya inuu qofkii dhaho su-aalaha markii lagu badiyo heblaayo ninkaadi aaway maxaa ma jirana dhib maa jiro subxaan allah qofkii suu aamusay marka dambe wuxuu oranayaa waxaa wanaagsan su-aalaha haddii lagugu soo badbadiyo lagu dhaho intuu aaday ama intee aaday haddaa doonaysa marka dadka horta ibni aadan lama qancin karo subxaan allah bini aadan daanad maanta waa qancinaya adi lee daari kartid marka haddaa is leedahay dadkii kugu xirnaa runta iskaga sheeg basiid waxaad oran kartaa haddaad caruur isku dhasheenna ilmahayga aabahood si wanaagsan baan ku kala dhammaanay inaaf wax kale ha gelin intaasaa okay ah wax kale maba jirtabo waan kala tagnay ayaantan mina isku keena arkin soo maha su-aalihiin waa liigu soo badi mahan haddaan ku gaabsado ka waran waan kala tagnay taasid waan kala tagnay wax kale baa ma shimaan karo maxaa ku kala tagteena imaanayso sax because waa iska war jecelnahay subxaan allah waan kala tagnay dee calaf baa laisku kaaya keenay bacdeen calafkii wuu dhamaaday khalaas sharaf baan iyo cizaan u hayaa wanaag ka sheeg yaa lagu qodqodin afka lagaa qoryeyn oo wixii adiga maybe ku kala tagteen taas waa adiga iyo asaga waa inay private ahaato ma ahan inaa shaaxisid saasaa ku kala tagnay saana ku kala tagnay saanay ahayd sidaanay ahayd macquule maxaa okay waa sheegtayba wixii dhanaa sheegtay maxaa soo korismayo waxba ceeb subxaan allah ceeb so waxaad ku gaabsatiin billah caleyk waxaad ku gaabsatiin calafkii ugu dhammaaday sharaf iyo cizaan labadeennaba isku haynaa hadduu doono asaga qofkii soo hadlo qofkii kale iyo haddana talabaad yaa la isku dabadayan hadday gabadhii ayada ay waxay doonto sheegto ninka ha gaabsado
يعني labadiina mid ka mid hadduu burqamo oo isaga wixii sheego bal qofka kalena yuusan ku dayanin ileen soomaalida waxay ku mahmaadaa haddaa la kala roonaan roob ma da'o bal haddaa la kala roonaan roob ma da'o talo mahmaahdaas maxaa laga wadaa ya haddaa la kala roonaan roob ma da'o yacni waa in la kala roonaadaa roobka ilaahay baa keenay oo haddii la kala dambeyn waayo haddii la kala dambeeyabo macnaha roob buu da'ayaa laakiin kulley mataal ahaan bay usoo qaataan sax haddii la kala roonaan roob ma da'o yacni waa in la kala roonaadaa haddii la isku dabadaydo yacni wax hagaagaya ma laha marka intaas ku gaabsada at least waxaa wanaagsan inta inaa ku gaabsatiin bedelka aad yacni waxaan loo baahnayn dadkan war ibni aadamka ilaahaygi subxaanahu watacaala unbaa qancin karo haddaad ka warmaanta dadka igu xiran baan doonaya inaan qanciyo so ilaa sed aad geysidoo dhahdi saan waay wallahi macquul ma aha waxaas wax yacni wanaagsan ma aha subxaan allah talabaad dumarku inay waxyaalahaas ka sheekeeyaan waxay u malayaan inay tahay wax wanaagsan war waxaas wax wanaagsan ma ahan acuudu billaah ilaahayow adiga weyno waaxid ah ilaah ceebteenna astur warnimihii khayr baa idin rajaynaya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu fi amaan illah kuwa isku ishooda allah naga dhigo